بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bishii 10aad sanadka 2010 ayuu Sheekh Umar Faaruq muxaadaro diini ah oo dhinacyo badan taabanaysa khadka telefoonka ugu jeediyay jaaliyada Soomaalida ogaadeen ee ku dhaqan magaalada Perth ee galbeedka Australia muxaadarada diiniga ah ee sheekhu jeediyay oo ku wajahnay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka ayaa ahayd muxaadaro dareenka dadka kicisay dhanka kale waxaa sheekha la weydiiyay su'aalo diini ah oo ku saabsan halganka ogaadeenaya ka socda ee ay jabhadda ONLF hogaaminayso waxaana fududeysay duubista iyo soo bandhigidda shabakada warbaahinta ee Qoraxay online. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ عمر فاروق محاضرة قيمة ee noo soo jeedisay ilaahina waxaan ka rajeynaynaa in uu naga dhigo kuwii ku camal fala ee qaata adigana waxaan ilaahay kaaga rajeynaynaa in uu ajri iyo xasanaad uu kugu ziyaadiyo miisaankaaga yaan ilaahay ka rajeynaynaa جزاكم الله خير آمين يا رب. waxaan doonaynaa inaanu haddii ilaahay yiraahdo afar su'aalood baan rabnaa inaanu ku weydiino su'aasha ugu horeysa Sheekh Umar Faaruq waxa weeyaan ururka ONLF ee dagaalka kula jira Ethiopia ma banaan tahay in lagu taageero naf maal iyo maskaxba. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ururkaasi waa urur wanaagsan oo xaq u dirida oo la dulmay gaalo dul degtay oy dadkoodii iyo dalkoodiiba adoonsatay dunyadoodiina dhacday iyaguna u dulqaadan waayo taa ka dhiidhiyey sidaa darteedna u dagaalamaya haddaba ururka waa in naf iyo maalba lagu taageero oo la ayido oo la gargaaro كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لو هدي إنت إيها أقو قرقرتان إذن قدل ما وحا إذن واجبا إن أقو قرقرتان وإن استنصروكم في الدين هدي إنت إذن قرقرتان ما فعليكم النصر waxaa idinku waajiba inaa u gargaartaan oo hil iyo hoo isla garab taagtaan oo waxaad heli kartaan amaad haaban kartaan aydaan ka hakran marka ururkaasi waa urur xaq u dirira gaalada la dagaalamaya dalkoodiina gobonnimo u doonaya muddo badanna soo halgamayay hadeerna halgankii ku jira kolka ururka in la taageero weeye wabilaahi tawfiiq. جزاك الله خير Sheekh Umar Faaruq. su'aasha labaad ee kale waxa weeyaan dad Soomaali ah oo muslim sheegan haya ayaa la safan Ethiopia oo la dagaalamaya dadka xoreyn haya dalkaas muxuu yahay dadka xukunkoodu marka. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد قالوا وحي صور راعة وقالوا قعصة يجيبوا الحكم نغونا يا كلك ولا والين ولا وعدين ولا عقد أرين هدي وان زمان ويوعدي يوالدي قاتان وأي قالوا كهران أي هجاجان وسيدي ندوريني لكن هذي قالوا كم رمان كان هذي ويان صار هجاميان فعان والله سيدي كور قالوا اللون لا
أي إينا الله وبالله توفيق. جزاك الله خير. سؤال الصدحات talis gaalo ah oo haysta dad iyo dal muslim ah xoogna ku haysta dagaalka ka dhaxeeya ama heshiis noocee ah ayaa dhex mari kara. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد تدكاس مسلم كهيستا ودد يدل يدوية مسلم ليه هيستا قوي حوقنا كو هيستا إن أين كأت كالان أمين كأت كان ما هي heshiis lala geli karaayo ma jiro oo inay muslimiintii dullaystaan dad iyo dalbana gumaystaan dunyadoodiina ka dhacaan looguna dulqaato taas suurtagal ma aha. kolkaa waa lala dagaalami waana layska dhicin. sidaas diintu ina faraysaa wabillahi tawfiiq. jazaak allah khayr. su-aasha u dambaysa sheekh cumar faaruq waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed ee degan ee ilaahay ku abuuray geeska africa iyo dhammaan ummadda muslimiinta ah maxaa xil ah oo ka saaran garabsiinta walaalahooda la gumaysto ee u dagaalamahaya in ay dulliga saaran iska dulqaadaan. jazaak allah khayr. قال الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. حديد المسلمة أولا الظلمي أولا الدلدمي أولا قميستي ودد يدلينا لدليستي أيضا كدي ديان كعان إني وحايس كدل غادان نو كعان إن الله أنت مسلمين تا إلى الكود وحاك واجب إني أقرقاران ويهيل إيهو إسلا قرب تاقان إلى أيدتك مسلمين تا الدلقة إسكد الغابان سداسا واجب كوء وبالله توفيق. aad iyo aad baad kaaga mahad celinaynaa fursadaada qaaliga ah ee nasiisay. jazaaka allahu khayr sheekh cumar faaruuq. waqtigaaga qaaliga ah maxaadarada aad noo soo jeedisay ilaahay ha naga dhigo kuwii ku camal fala. waxaanan insha allahu aan rajaynaynaa inaan ummad badan aan gaadhsiino masajkaagan qaaliga ah ee aad noo soo gaadhsiisay. حياكم الله وبياكم الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.